إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبتي maanta oo bisha December 28 tahay sanadka 2019 ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan ex control afgooye oo cadawga nabadiidka ah ee argagixisada ah oo ku baabi'iyay dad Soomaaliyeed oo aan wax dambiye lahayn. marka ugu horeysa waa u tacsiyeynaa qoysaskii iyo qaraabadii iyo eheladii ay ka baxeen intii dhimatay. waxaan leenahay Allah u naxariiso jannada Allah ka waraabiyo samani iimaanna Allah ka siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtaba. inta ku dhaawacantana Ilaahay baan uga baryaynaa inuu u boogadhayo caafimaad degdegna siiyo. intaas ka soo waxaan rabaa inaan iyadana hoosta ka xariiqo in feejignaan buuxda laga muujiyo arrimaha amniga gaar ahaan caasimadda Muqdisho oo ay badatay mar walba in dhibaato ay geystaan cadawga iyo intii la xiriirtaba. sidoo kale waxaan baaq u dirayaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalka caalamiga iyo kuwa maxalligaaba inay gurmad degdeg la gaaraan dadka Soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay maanta musiibadii ka dhacday magaalada Muqdisho. waxaan leenahay ha loo gurmado wax alla wixii la qaban karana ha la qabto, mas'uuliyadna wada saaran waaye. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.